koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan ardadow dam dulmidhii dadna dhammaadi war maxaa ku horbooday ku nasiibsamiya ku nasiibsoo nafta weysii waaye war waa la fashiliyey beena haddaad horay u maqli jirteen maanta show waxbaa ka runa hadda qaraxa dhawaaqiisa iyo xabadda askartaa horraysaa la yidhi jooji markuu jogboontigii ciidanka diidey ayaa xabaddii lagu furay asagoo raba inuu baarlamaanka toos u galo kadibna hawaduu keligiis galay askartuna inay dilaan bay rabeene waaba waayeen waxay dilaan oo asagaa iska takhallusay war qaraxa mooshinoo waday oo uu rabay inuu baarlamaanka keeno ajandaha laga hadlayey kuma jirin mooshin jogboontiyada jiiraya war saas ma ee kooramka lambar 4 mid kale ayaa lagu fashiliyey ninkii wadana gacanta ayaa lagu hayaabaa leer gaariga war mar haddii ninkiioo nool la qabtay wax la dilo waa la helaya war qaraxyadu maanta ma waxay ahaayeen soo joog ninka laga waayo soo jiifaa laga helaa war qaraxyo badan ay dilo badan oo beledkan ka dhacay ninkii hogaaminayey baa isagoo qoslaaya la wareystay wuxuuna sheegay dilalka inta badan inay ahaayeen ku nasiibso wuxuu yidhi baabuurkii ninkii dahabshil iyo carruurtiisa iyo kii kaloo xamarweyne xoghayihii ururka haweenka lagu dilay labaduu ku nasiibsay ahaayeen buu yidhi waxaana lagu amray buu yidhi baabuur kastoo qurux badan oo beensan leh ku qadi maysaane rasaasta ku qufa waxaase ka sii darrayd markii uu yidhi gaariga aniga aan isku qarxin lahaa qashinku way dhaqaaqi waayey war waxaasoo dhan waxaa ka darreed markuu yidhi weligay dugsi quraan leh ma geen iskuulna ma gelin maanyaridiisaan ka arka jaahilnimadiisa war laa yagtab walaa yagrac waa haylankaas warnimayoona waxaan la yaabanahay diinaan u dagaalamayayoon dadka u laynaya weligayna dugsi layma geyn siday isku qabanayso war taasi eedee dabbaalnimo lakadari dogongnimo waana la kordhaway waana la hoos dhawiiwo warnimayo doqonnimada aad sheegaysaan middii ugu xumayd anuu saakaan ku soo toosay waxaan maqlay ficil qofkii damiir loo maqlaa cara la dakaamayo gaalkacyo wixii xalag ka dhacay qofkii muslim oo dhegihiisu maqlaan nasiib buu leeyahay haddaan dhiig ku kicin marka waxaan aad uga xumaaday nin balaayadii bastooladaha wadata ay dishay in loogu aaro dad masaakiin oo aqalladoodii joogoon ka warqabinba waxaa kaloo iiga siiyaa badan goormaa shabaab qabiil noqdo oo qabiilka yeesha warniman yahow waxaan anigu soo maray saaka bakaaro waxaan arkay dameer laguu xamaalag jiray oo kareeta ku xintoo rarkii diidey anigu dooni mayuu yidhi oo gaari baa la ii malaynhayaa waxaa liigu dhejinaya qaraxa laygu dhejinahayaa sidaas buu ku diidey baqalbaa waxay tidhi adeerow anaa adduunyo waxaan ka sugtaa aysan ii ooline isaara kareetada sidaas baana lagu raray muraadkeeda ayadaa garanaysa marka waxaan idin weyddiinhayaa ummaddiinna Soomaaliyeed baqashu ehel iyo geyaan midna male miya war baqashii kuwa wax qarxinaya waa isku midkoodna tol ma leh war allihiina lama yahay weligeed baqali ciday dishay iyo ciday qarxisay midna laba arage dembi aysan gelin hataa dul saarinina war shabaabba qabiil ma lehe dadka ay dileen maxaa qabiil loogu aaneeyey war warkaa iga dhex gelinine reegaalkaaye waxaan dhihi lahaa dunuubtii layska galo dembiga aan laga hortegin xumaha aad daawataan dib baad uga qoomamayn dulmigii biiraadadyow qumbuludarriyow dhalaa waxaa kaloo la yidhi aadanaha dulmigu waa dabraa waana dumiyaa marka waxaan dhihi lahaa dadka gaalkacyo ku nool dembigii xala dhacay dadkii geystay ha la qaybsaninee ku kooba oo tiirka geeya calidhiif wixii dilayna dembiga xalay gaalkacyo ka dhacay ka mid yihiine ayagana tiirkaa lagu soo xiro warnimiyow gaalkacyo dad walaalagaan oo muslim waa degan inkastoo dad walaalagaan ee degan yihiin war gaalkacyo humo dhegdeha kadhiyaa ukan hali koomi in hayna hata ka hor gabartiila lahaay ay iisha dilhumadii langali iyoonay handhuumadii ka dhiidii aragdeen raggi dili hataba adaalad may hateegna haangna may ka aalay inoo go'wiin gable ka sii doono war ninka humoo xalay la dilayba kaanaga loo dilaya war saas ma ene miyaw dembigii liya qumbuli duryi nagade abwaanka waa eray dembigan badsateen warnimayo madaxda Soomaalidu meel kastoo ay joogtaba Facebooka waxay kula soo kala hormareen falkii gaalkacyo ka dhacay
dhacay waan cambaaraynaynaa marka waxaan dhihi lahay inta ilaahay ka cabsataan cambaar ilaa 90 baad wadeen dhaawacay bogsiisana ma haynaan arkin ee dadka ama ka aamusa ama wax u qabto war 90 ilaa hata cambaareen may bakalaniin weheliyay guddi baan u magacaawnay oo falka meesha ka dhacay soo baaro oo xaqiiqada jirta noo soo tabiyo ilaa hatana baaritaan wal ka baha ma aragne afdabolan deeba walwalbilka dhamaayo hay dadkina dhamaadeen war waxba ma ogidine asbuucan gudihiisa kaliya meeqa guddi baa la magacaabay sargaalkii booliska iyo xalasheelana ku dhintay guddi baa loo magacaabay sargaal kaleeto beledweyne agtiisa lagu dilay guddi baa loo magacaabay xiisada beledweyne guddi kalaa loo magacaabay laba sargaal oo xamarweyne isku xabadaysa guddi baa loo magacaabay maalinta xorriyadda guddi baa loo magacaabay gaalkacyana hadda maanta kaliya 3 guddi baa loo magacaabay marka waxaa soo baxay mashruucyo cusub oo la yidhaha guddi warnimayo anigu aad waxaan ula yaabanahay Soomaalidu waxay kala aqoon weyday mucaarad maamul iyo mucaarad qaran Kenya waxaan isku haysanaa waa dal iyo dad maya waxaan isku haysanaa waa bad war maya waxaan isku haysanaa aan wada hadalnayo wada hadli mayno war badu dalka ka mid tahay warka iga dhageysta ariya say uga mid tahay bad iyo biriyaaba la kala yiraahdo war waa reebaadiye kaliya ka soco marka Kenya masiir isku haysano madaxda dhageysa waa ku shiraynaa ma waxay kala aqoon waayeen qarannimada ilaalinteeda iyo mucaaradka ay madaxda dawladda uga soo horjeedaan war qaladku mucaaradka kaliya maaha madaxda dawladdu waa kuwa inta shir u aaday oo la yiri baasaboorka Soomaaliya kuma gali kartaan oo aeroboortka lagu celiyay baasaboorada ajaanibta la soo baxay warnimay uusan walba waashiidin xafiiska nikaah oo la kumahariye madaxda Soomaalida ardi sababki yaala jiri hatta may balahan guuriyay Nairobi nikaah ya sooday warka iska dhaafisan war ma hayside macal xafiiskii Dubai oo lacagta waaweyn laga soo qaaday jiray ayaa Nairobi loo soo wareejiyay Somaliland tii ku noqnoqon jirtay Imaaraadka Kenya ay hadda dhooban tahay maamul goboleedyaduna waa la mid wariyo ma siyaasiyiinta dhimatay weerooyna mise siyaasiyiinta nool war shacabka la ihaanaynay u ooy hada cid u ooyisaniyo war aan helmaylinka ooy ida uma maqna eelna uma qodna mar horba erteena warnimayo war ma haysaane ninkii New Zealand masaajidka dadka muslimiinta asigoo ku laynaya leefka soo galay maxkamada la soo taagay waxayna tiri wax dambiya kuma hayno warnimayo horta islaanta New Zealand madaxda ka anigu muddan taageeray ilhaan umarna muddan taageeray labadiibana dib ay ugu soo xumaadeen nin horena wuxuu yiri arraweelo dumar oo dhan bay u aqli roonayde ayaduna awowgeed la narma arrin fiicnay warta islaanta New Zealand madaxda ka ah barnaamijkaas siyaasiyan waa uga jawaabtay laakiin anu maxkamadan la yaabana war naga tag meel maxkamadeedu indhalaadahay oo aysan baarag life-ku ninku soo galay siyaasadeeduna indhama leh war ninka ay maxkamadda New Zealand dambiga ku weysay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya hala keeno suutay lima caliyaro ayaa suutul maayda ku dul akhrinayeen warnimada waxa la yiri haddaad gobis eeday u yeeratay guurti gartiina adkaatay rugtiyo gogosheeda ka weyda garawsho mid walibana geesti huq iyo gocashooyin ku gowsaadaygo gadaad ku taqaanay ka guure dadkaasi gumbayna noqdeene wanaag ha ka goobin war ma reer gaalka sheegaysaa maya reer mudugow sheega war garawshaha warkii inga dambeeyay ana lankaasay maxkamadda ma inka garawti inoo muslimiinta dhamaaya war sheegi maayo naga taga Kalamaan buu sheegayay waradana qaranka Soomaaliland waa dad gobe ku tayda war si aan daacad ahayn iyo bariyahan dulmi biiraa dadka loo dilayay horta yaa ka damiina doolarka iyo bilaan madan i muraad makaliya damiinka si aan daacad ahayn baa dadka loo dilayaa kuye xageed ku aragtay dad daacad loo dilayo war qaliishka waxa isku haysta Ilaahay Iran iyo Mareykan yaa ku adkaada horta war Saadiq Al-Mahdi iyo General Burhan yaa Suudaan ku adkaaday war Huutiyiintii iyona isbahaysiga Arabta Yaman ay ka adkaadi war ma haysaana nin baa gabiyay wuxuu yiri Arabay taraan baa qarribay qalabadiinii qurqursiida gaalada waxaad qarash lahaydeen muslimkiina qayb lagama siin waadna qadiseen khayraadkii ee biyo shidaal qodata laakiinse qamri buu idinkugu bedelay adinka qayrkiina qashin cadow idin keenayaad ugu qoslaysaan war nin kala gabiyay isaguna wuxuu yiri allow carabta xoolaha ka qaada ma soo qayb war carabta sheegayso imaaraadka hanaga darin carruurtu caanaha loo siiyay caana waayo cagay ka tug anta liigto cimri muu caana wooyaya war ya ilmo Soomaaliyeed aan kaarta ka dhaafa war ilmo ka qaaxa weyne waa oday qaryahan oo horteed ka war laga tagacanta fuude war ya ka cali war war ya sharciga ilaasha
الله عيبتنا استر